in xildhibaanku yiraahdo odayaasha baan xoogaa lacag u geenayaa cod kalsoonida odayaashan la imaanaya musharaxuna yiraahdo 66 kan dhowr iyo 40 ka iibsanaya waxaad moodaa in karaamadii dalka iyo dadka in lagu tuntay dawladnimadina in la gatay dalkeena in la gatay dadnimadina in la gatay damiirkeena in la gatay waana loo fadwooday inaanu bixino si aanu meesha u tagno oo wax u wanaajino dawladda beeshi la tagay oo xayndaab ka sokeeyo maxaa wax wanaajin yaa waxa sida meesha tagay saasi taasi miyaa warkaas caday meesha xayndaab ka sokeeyo rag baa teer dhigtay marka waxba lama sameyn karo hadaan meesha si lagu tagi lahaa waa lagu tagaa in musharaxiintu suuq ay la taagan yihiin 66 kan iibsanaya dadka kale reer Puntland waxba kama rabo waray arintaas waa wax gafko ah nolosha iyo karaamada iyo dadnimada iyo kuwa musharaxiinta laftigooda asluub ma aha in la yahay 66 kan gadanayna xildhibaanada in ereyga lagu sameeyaa wax karaamadooda u daran waana wax iyaga lagu arkay haday in istaahilin ereyga lama yiraahdeen